shacabka Buuhoodle ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda xiisadeed ee ka taagan kastamka Tukaraq ee bariga gobolka Sool waxayna ugu baaqeen in arrintaasi ka dambeeyaan xukuumadda Somaliland iyo ciidamada halkaasi laga buuxdhaafiyay ka tirsan Somaliland. qaar ka mid ah shacabka Buuhoodle ayaa fariin u diray xukuumadda Somaliland oo ugu baaqeen inay dhibaatada ka joojiyaan shacabka ku nool deegaanka Tukaraq iyo deegaanada ku xiran. halkaas oo isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo Somaliland oo labada dhinac ay ciidamo ku sii daabulayaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. kal hore ay ahayd markii halkaas ay la wareegeen ciidamada Somaliland ayaguna ka qabsaday kuwa Puntland. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. dhammaan warbaahinta mar walba fikirka dadweynaha mar walba weydiiya aad iyo aad baan u salaamayaa isaga inta ka bacdi haddii aan cabiro tareenka Tukaraq waxaan oran karaa tareenka Tukaraq ajalo baxaya oo aan la badbaadin karin baa halkaas yaala inkasta oo Ilaahay fasaxo marka qofku dhimanayo sababna uu yeesho waxaan u maleynayaa ajalo musabixi uu sabab u noqonayo ayaa halka yaala waayo waad aragtaayo sida waxay u socdaan waa si aad iyo aad aqliga saliimku u diidan yahay nimcada Ilaahay ku siiyana inaad ku shukridaa fiican marka waxaan oran karaa Somaliland runtii waxaan oran karaa waa dadka Soomaaliyeed jaanisi aad iyo aad u fara badan helay sababtu maxay tahay iyadoo Soomaaliyaba dawladdu ka dhisnayn maamul ka dhisnayn ayay waxay heshay maamul amni iyo nabadgelyo ayay heshay runtii waxaan oran karaa jaaniskeeda kama faa'iideysan oo aan ka mid ah dadka shacabka ee ku nool Buuhoodle waxaan ka hadlayaa xaaladda ka taagan Tukaraq waxaa degan dad masaakiin oo shacaba lagu barakiciyay lagu weeraray waxaanu taageersanahay duulaanka Somaliland ku qaaday Tukaraq ma waa daro waa daalimnimo dad muslim ila barakiciyo diintu ma oga xitaa tagaalada ma oga marka waxaan leenahay dalka dadkii lahaa ciidanka lagu tusugaray miisaanka inta laga dulqaado dadka ciidanka shacabka ha laga dulqaado waayo يعني كما دulqaadan doonaa anagu dad xoraan nahay dadka Soomaaliya saaga cindiga waa la yaqaana يعني isriya ciidayihiin isirkooda waa la yaqaana ciidanka Soomaaliland waa qabaa'il waa loo ognahay waa qabaa'il hal qabaa'il weey ama Isaaq weey meesha Isaaq waxba anagu lama leeyahay hal labaana qaybsan 12 kaleega isin يعني lama joogan ma ogola يعني دوا عيدن دولانا أو دولا موسى عبد السلام حمراوي SBS TV مقالة Buuhoodle حرونته قبل كعي